kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Khaatumo ka soo jeeda ee degan wadanka Belgium-ka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Antwerpen ee wadanka Belgium-ka ayadoona kulanka lagu taageerayo maamulka uu hogaamiyo Cali Khaliif Galeer ee Khaatumo State of Somalia. kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, odayaal, waxgarad iyo haween oo dhammaantood si weyn u taageersanaa maamulka Khaatumo State ee dhawaan lagaga dhawaaqay magaalada Saxdheer ee gobolada Khaatumo State of Somalia. kulanka ayaa waxaa dadkii ka hadlay si aad ay u cambaareeyeen weerarkii dhawaan ciidamada Somaliland ay ku soo qaadeen magaalada Saxdheer ayagoona sheegay in duulaankaasi uu ahaa duulaan galdarro ah. inta dabadeed waxa weeye waxaana aad u cambaareynaa maamulka Hargeysa ka taliya ee muddada 10 sanadood gaaraysa weerarada noocyada kala duwan ah ku wada Khaatumo State of Somalia kii ugu dambeeyayna uu ahaa kuwii taariikh lagu soo qaaday iyo ka Saxdheer ka socday ilaa iminka. haddaan yar ka taabto maamulka Khaatumo waxaa samaystay ama loo Khaatumo State of Somalia maamul goboleedkan waxaa samaystay dadka u dhashay ama ku nool dhammaan gobolada SSC gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn dhammaan qowmiyadaha ku nool oo dhan ayaa ku heshiiyey waana mabda la doonayo in cid wax lagu yeelo, in cid lagu cambaareeyo, in cid lagu boobo, in cid lagu duulo waa mabda ay doonayeen dadka u dhashay deegaamadaasi inay mustaqbalka ayahooda ka tashadaan iyagoo ilaalinaya ixtiraamayana midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed inay tahay muqaddas lama taabtaan. dadka reer Khaatumo hadafkoodu waxa weeyaan oo ay doonayaan in ummad kasta, gobol kasta, tuulo kasta iyo xaafad kasta oo Soomaaliyeed dadka degan in iyagu ay ismaamulaan, in dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyagu ay wada tashadaan ee aan loo talin. waxaanu doonaynaa magaalo kasta oo Soomaaliyeed in iyadu ay ismaamulaan. Khaatumo waxay doonaysaa dadka inaan loo talin, inaan la jujuubin, laakiin in la tashado. Khaatumada waxaan u sheegayaa oo madaxweynaha aan u sheegayaa inuu raadiyo Khaatumo oo midaysan. ma guulaysanayno Khaatumo mid ah inuu raadiyo ayaan leeyahay madaxweynaha sharafta leh. raadi Khaatumo mid ah maanta maaha mid. kulanka ayaa dadka waxaa kala soo qayb galay siyaasi caan ah oo lagu magacaabo Axmed Saleebaan Dafle oo ka mid ahaan jiray shantii golaha sare ee kacaanka ee dawladii uu hogaamin jiray Maxamed Siyaad Barre asagoona si weyn ugu dheeraaday khudbadiisa waxaana uu sheegay in ay taariikh fog leeyihiin dadka reer Khaatumo waxaana ka sheekeeyay taariikhdii ay soo mareen asagoona ku baaqay in aan loo baahnayn xilligan in Soomaaliya la kala gogoyo isla markaasna si weyn loo taageero maamulka Khaatumo State of Somalia oo ku sheegay inuu yahay maamul taariikhi ah. meesha maxaa Khaatumo iminka la yiraahdo waxa xadkii Ingiriis iyo Talyaani kala dhigteen. waa meesha la doonayo in Soomaali laga gowraco. ninka Soomaali doonaya inuu kala qaybiyo wuu gowracayaa. waa meesha la doonaya in laga gowraco xadkaas. Khaatumona xadka ilaalinaysa inaan xaggan iyo xaggan midna in la isu dhaafo maahaane aan la kala xidhin. Cabdullaahi Maxamed Xuseen Taajiro, warbaahinta qaranka, magaalada Antwerpen wadanka Belgium-ka.